بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa xarunta dhexe ee xisbiga sinaanta ammaanka ee midnimo ololeynta qaybtani waa xafiiska guud ee howlgalka diiwaangelinta iyo la socodka howlaha guud ee diiwaangelinta xisbiga samo. sida aad la socotaan wadanka waxa uu socdaa doorasho one man one vote haduu ilaahay yiraahdo. xisbigan wuxuu u diyaar garoobayaa sidii oo kaalinteeda mug leh oo ka geysto oo si markaas ay diiwaangelinta loo baahan yahay in lagu diiwaangeliyo codbixiyaasha berito codeyn doona ayaa si howli ka socda xarunta dhexe ee xisbiga samo. waxaa xarunta qaybta diiwaangelinta oo hawsha ka socda kormeer ku yimid gudoomiyaha xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta mudane ogaas Sheekh Hussein Honero iyo wakiilka koonfur galbeed ee u fadhiya xarunta dhexe xisbiga mudane Maxamed Nuur Ali Baba. marka waxay ku guda jiraan kormeerkii shaqaalihii xafiiska fadhiya si ay maxaa la yiraahdaa u kormeeraan sida howlaha u socdaan. qaybtani sidaad ka aragtaan meesha sawirka meesha idinkaga muuqda waxaa ku qoran xafiiska isku duwaha waaxyaha dowlad goboleedyada dhammaan maamulada goboleedyada ee ka socda diiwaangelinta halkan ayaa laga xukumaa diiwaangelinteeda iyo marka sida loo sameynayo. sida meesha ka soo arkaysaan waxaa fadhiya maxaa la yiraahdaa wakiilka diiwaangelinta Jubbaland qaasatan degmada Jamaame oo ku guda jira howlihiisa diiwaangelinta waxaana yaala galalkii diiwaangelinta oo dhammaan gobolada dalka sida Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay, Bakool, Gedo iyo gobolka Banaadir. galalkaas ayaa xogtii lagu guraa. halkanina waa xafiiskii sida aad ka aragtaan oo qof walba ku guda jira howlahooda shaqo ee ku qabanayaan xarunta dhexe ee xisbiga samo. insha Allah waana kaararkii lagu sameynayo oo lagu diiwaangelinayo ayuu sameynayaa. waa madaxii diiwaangelinta oo halkaas fadhiya oo u qaabilsan arrimaha diiwaangelinta oo kor joogo gudoomiyaha xisbiga si ay u arko howlaha diiwaangelinta meesha ay marayaan. maasha Allah madaxii diiwaangelinta kaararka oo aqoonsiga ku bixiyo ayuu halkan noola fadhiyaa. kaararkaasne waa kaararka oo qofka qaato oo yahay inuu yahay diiwaangeliye oo u diiwaangashan yahay xisbiga samo. halkanina waxaa fadhiya sida hore idinku sheegay wakiilka Jubbaland gaar ahaan degmada Jamaame u fadhiya heer federaal ama xarunta dhexe xisbiga diiwaangelinaya dhammaan wixii laga soo gudbiyay wuxuu ku gurayaa Excelka sida meesha idinkaga muuqda ama Wordka. diiwaangelinta dadka formkiina meesha u yaala waa sida meesha ka aragtaan isla markaasna u gudbin doona galka guud ee xisbiga insha Allah. horena sidaan ku sheegay kaararkii oo qaabka loo sameynayo waa madaxii diiwaangelinta oo bixinaya kaararka aqoonsiyada xisbiga samo. waxaana kor jooga maxaa la yiraahdaa kormeerayaasha maanta ku soo booqday xarunta dhexe ee xisbiga qaybta diiwaangelinta si ay ula socdaan una ogaadaan marxaladda diiwaangelinta ee ka socda xarunta dhexe ee xisbiga. waxaa halkan fadhisa Marwo Faadumo Ibrahim Qumane oo ah gudoomiyaha haweenka ee xisbiga samo ayadana soo booqatay qaybta diiwaangelinta sida howsha dadka ku socdo qaybta maxaa la yiraahdaa koonfur galbeed. waa madaxii diiwaangelinta qaybta koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Baay ayaa isla fadhiyaan waxayna eegaysaa ama fiirinaysaa ama indhaynaysaa baaritaan ku haysa sida howsha u socoto ee diiwaangelinta arrimaha diiwaangelinta xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta oo ka socda xarunta dhexe xisbiga samo. maasha Allah dhankan markaan u gudbo waa qayb kale iyadana ka socda howlaha diiwaangelinta ee xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeynta. waxaa fadhiya Mr. Yasin asigana u qaabilsan arrimaha diiwaangelinta sida loo ka aragtaan waa magacyadii la soo gudbiyay sawiradii ayaa u kala shaandheynaya. waana wakiilka xisbiga samo ee degmada Kismaayo ee u fadhiya halkan xarunta dhexe xisbiga samo. insha Allah
sidaas ayay u socdaan, sidaas ayaan soo gudbin doonaa howlihii diiwaangelinta ay ka socda xarunta dhexe xisbiga si loo diyaar garoobo doorashada 2020-2021 hadduu ilaahay yiraahdo. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawasho wacan. كلمتين هدي أو نو شيء دونان محل يرادا وكيل كونفور قلبات وكيل كونفور قلبات محدي لده هلا كسعود حرونتا شغالة قابل وشغالة يعني. الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله هو حزب كسفي أنا وسعتها عندي بانجلند يقاب